Asxaabtayda qaaliga ah, maanta waxaan idiin wadaa qisadan wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan. Ila daawada ilaa dhammaad. Wiil ayaa jiray, waxa uu ku dhashay waddan ka mid ah Ingiriiska oo la dhahaa Scotland. Aabihiisa waxa uu ka shaqayn jiray farsamada gacanta sida kuwa dharka tolo. Hooyadiisna kabaha ayay deriska u toli jirtay si nolol maalmeedka uga hesho. Waxaa jiray maalmo qoyskan cunto la'aan ay seexan jireen. Markii uu 12 sano soo gaaray wiilka, waxa uu arkay guriga aabihiis iyo warshadii farsamada oo lagala wareegay. Maalintaas aad buu u murugooday. Sidoo kale waxa uu ballan qaaday maalin maalmaha ka mid ah in uu guuleysan doono, waalidkiisana ay nolol qurxoon ku noolaan doonaan. Ugu dambeyntii, qoyskiisa Mareykanka ayay u soo guureen ayagoo rajaynayo nolol ka fiican tii hore. Laakiin wiilka aabihiisa sida uu filayay maysan noqonin. Warshadii farsamada ay dib u fureenna way socon weysay. Wiilkii markii uu gaaray 13 sano, iskuulkii waa uu ka tagay, waxa uuna ka shaqo bilaabay warshadda dharka samayso, taasoo mashiinada lagu shaqeynayo heerkulkooda aad u sarreeyo. Laakiin waa uu faraxsanaa maadaama qoyskooda uu saacideen. Kadib waxa uu ka shaqo bilaabay kambaniga dhismaha wadooyinka tareenada. Shaqo walba uu qabanayana waxba kamuu hagran jirin, 100% sida laga rabay ayuu u qaban jiray. Aroortii hore ayuu kacayaa qorraxda inta aysan soo bixin, shaqadana waxa uu ku jirayaa ilaa habeenkii xilli dambo. Waxa uu aaminsanaa si uu u guuleysto waa in uu nolosha cashiro ka bartaa. Sidaa daraaddeed waxa uu bilaabay in uu buugaagta akhriyo si cilmi iyo aqoon u siyaadsado. Xitaa waqtiyada adag waxa uu ahaa mid niyad wanaagsan, noloshiisana u sheegayo maalin maalmaha ka mid ah in uu guuleysan doono. Maalintaasna way imaaday. Mudanihiisa ayaa ku ammaanay shaqadiisa wanaagsan, waxaana uu u sheegay fursad ganacsi taasoo laga rabo in uu keeno lacag gaaraysa $500 oo maalgashi ah. Aad buu u farxay, laakiin waxa uu ogaaday in uu $50 oo kaliya lacag ka haysto. Waqtigaas hooyadiisa ayaa ku caawisay lacagta ayadoo damaanad u dhigtay gurigeeda. Lacagtaas ay ka heshay guriga ayay wiilkeeda siisay, ayadoo rajaynayso in ay aragto wiilkeeda oo nolosha guulka gaaray. Maalgashigii uu suubiyey wiilka waxa uu ka sameeyay faa'iido aad u weyn. Sidoo kale waxa uu helay wadadii uu ku gaari lahaa mustaqbalka guusha. Waxa uu bilaabay in maalgashi uu ka suubiyo ganacsiyo fara badan. 30 sano kadib maalgashigii uu suubiyey wiilka warshadaha dharka ka shaqayn jiray, waxa uu noqday qofka ugu taajirsan dunida. Waxa uu leeyahay warshadda ugu weyn oo biraha soo saarta dunida. Laakiin arrin murugo leh ayaa dhacday. Wiilka hooyadiisa ayaa geeriyootay. Aad buu uga xumaaday geerida ku timid hooyadiisa. Waxa uu jeclaa in waayo qurux badan wada qaataan, nolosha adagna uu ka saaro. Nasiib darro maysan dhicintaas. Markii uu 65 sano soo gaaray, waxa uu go'aansaday inta noloshiisa ka dhiman in uu dadka kala caawiyo. Waxa uu bixiyay 90% maalkii uu lahaa in uu dadka masaakiinta u qaybiyo. Sidoo kale waxa uu furay 2500 oo maktabadood oo ku kala yaala dunida daafaheeda. Xilligaas uu joogay kala bar maktabadaha waddanka Mareykanka ku yaalo waxaa dhisay asaga. Ninka heerkan maraya maanta, aabihiisa waa kii farsamada dharka gacanta ku toli jiray. Sidoo kale ninkan waxbarashada heer sare kamuusan gaarin, wax lacag ahna muusan haysanin. Laakiin waxa uu abuuray ganacsi aad u ballaaran oo qiimihiisu gaaraya $300 bilyan. Ninkan waxaa la dhahaa Andrew Carnegie, waa ninka iska leh Carnegie Steel Company. Hadda dadka waxay u garanayaan kambanigaas US Steel, kambaniga biraha soo saara ee waddanka Mareykanka. Sidoo kale adigana haddii aad rabto nolosha in aad meel sare ka gaarto, ha ka quusan guusha marxalad kastoo kusoo wajahdo. Shaqo walbood qabanaysana wax dadaal ah hala harin. 100% intaad awoodo qabo. Ha joojini in aad wax sii barato, aad wax sii faa'iidaysto. Sidoo kale isku day in aad maskixiyan iyo aqli ahaanba aad u korto. Ugu dambeyntii, markii aad guuleysato, ha hilmaamin in aad dhiirigeliso dadka. Sidoo kale isku day in aad caawiso dadka masaakiinta ah oodna ka farxiso. Waad mahadsantihiin maanta muuqaalka videoga in soo tabin halkaas ayuu ku eegay asxaabtayda qaaliga ah. Waxaan ka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Haddii aad marka hore nala joogto asxaabta ka mid ahayd, sii faafi muuqaalkaas, sii share garee. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.